بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي wanaagsan khiyaarteena meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka maxaa cusub wadahan oo kale aad uga barateen barteena barnaamijka waxaan ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta caalamkani waxa laga yiraahdaa kusoo qaadan doonaa sheekooyinkii ugu waaweynaa dunida kubadda cagta kulamadii shalay tolo la ciyaaray wixii laga yiri waan ka hadli doonaa City oo lagu maadeysanayo iyo waliba Erling Haaland oo waxa ku dhacaya diyaabi doontid Mane iyo waliba kooxdiisa Bavaria oo koobkoodii ugu horeeyay xilciyaareedka ku guuleystay isla markaana dabaaldegaya wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga Malaki oo leh aniga ma eegayo heshiisyada cusub ee keentay kooxda kubadda cagta ee Barcelona maxaa yeelay wiilasheedu dhagahoodu waxa ka yeeraya 14kii kii ahaa ee Champions League wax badan baan idin hayaa sheekooyin kale oo dunida kubadda cagta bandiirada saari doona isla markaana ka hadli doona kuwa iyo kuwa kale barnaamijkeena maxaa cusub ayaad kaga bogan doontaan kulanti wanaagsan khiyaarteena meel kastoo aad joogtaan fadlan haddii aad ku cusub tahay barteena subscribe saaro youtube-keena sii share garee waxaanu iigsanaynaa safarka nus milyanka ruux waxaanu idinka codsanaynaa sii sheergaraysan saaxiibadiina aad la wadaagtaan aad baad u mahadsantihiin markana waxaanu sidoo kale idinka codsanaa barteena facebook inaad booqataan isla markaana follow aad tiraahdo daawade aanu ku bilownay kulamo xiiso badan baa la ciyaaray kuwii saaxiibtinimada waan ku bilaabi doonaa Liverpool wixii laga yiri waan waqti ku qaadan doonaa wararkii kale ee suuqa baan ku soo xiri doonaa nadiif kubadda cagta Arsenal sanadkan waxay soo wadiyoobigu yaaweyn markaan idin lahaa idinka been baad u maleyseen been baad moodeen laakiin kuwan waa kuwa tagay war 6 gool baa Xavier Julian Lopetegui baa jooga adiga Xavier waxaad moodaa Watford iyo kuwa ka hoosay ma Xavier wanaadiga markaas ugu yaraan saddexaad iyo afraad marka laga horyaalka La Liga inta la qabsaday 6 laga dhaliyay marka City nin hadda saas yeelo ma City iyo u dahay marka Liverpool iyo ma nikada war Arsenal sanadkan waxa waay wariyo iska dhaafay Arsenal qof Arsenal taageer xitaa hortiisa isku istaagin kugu dhacda yaabi doonay haddaba Gabriel Jesus ayaa hatari ka kacay isla markaana Bukayo Saka ayaa la arkayay isagoo wacdara sameynaya geesta kale naadiga kubadda cagta Manchester United ayaa la garaacay isla markaana Atletico Madrid ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay walow maanta ciyaari doonaan Cristiano maanta uu isagu ciyaari doono laakiin kulamadii xiisaha lahaa ee kale la ciyaaray Saka waxa kamid ah kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Monaco Madrid iyo Juventus ayaa fooda istaraysa markaana Abu Ibrahim mar kale waa dhalinaya mandhaxda wuxuu dhaliyay gool unbelievable isla markaana cajiiba mar kale waa dhalinaya gool kulaad buu isagu ka dhaliyay Juventus si kastoo loo adkay ma kuwan bay ku aadaan tabarumayaan kuwan waa laga dhaliyay haddana Asensio ba u labay 69 daqiiqo waana lagu kala tagay waxa la yiri iska baxa gurigeena iska aada shaqo ma qabtaan Dani Carvajal iyo Militao iyo Alaba iyo Mendy iyo Modric iyo Casemiro iyo Kroos iyo Federico Valverde iyo Benzema iyo lagu soo bilaabay Vinicius Junior inta lafsadoodu ma saaranin Denis Zakaria iyo Fiore iyo waliba ninkii ahaa Locatelli waa qad ka dhex ciyaaray Moiskin iyo Vlahovic iyo ninkii ahaa Di Maria iyo weerarka lagu soo bilaabay marka Bremer iyo Bonucci iyo Lisandro iyo Danilo ayaana markaas iyagu ciyaaray marka waa laga adkaaday kuwan tirintoodu wax macnaba kuma fadhide maadaama dhagta lagu dhuftay talama haya marka laakiin kooxda kubadda cagta Barcelona lafsadeedu way ciyaartay isla markaana Barcelona xilciyaareedkan iyaguna si u kacsiin waa Ilaahay kama horkeeno New York Red Bull ayay markaas iyaguna la ciyaareen Ousmane Dembele waa si kacsiin soo taageerani waa dhaliyay xalay tolo hadana Ousmane war kuwan waxa waaye kuwan kuwii laga duceysan jiray maraya hadda war Barcelona war sanadkan Barcelona hadana 2015 2009 aysan noqon nasiib leedii mucaaradkii markuwan ma tabar weeshan kuwan waxa ay sameynayaan shibdhaha kuwan waaba soo dhigteenba waxa laga hadlay waxay tahay kulan kasta wala iska badinaya hada guul darrama soo gaarinba hal kulan barbara inta kale wala badinaya 6-4-5 wax la daadinaya hadda waa 2-0 markaa ku adkaadeen Uthman iyo Memphis Depay baa kala dhaliyay sida Spain kooxda kubadda cagta Belgrano lafsadeedu iyagoo ku adkaadeen walle kuwan iyaguna waa sheega gale aanu aragno nadiga kubadda cagta Bayern Munich ayaa habeenkii xalay tolo ku guuleysatay in iyagu ay qaadaan koobkii Super Koobaha Jarmalka Ingiriiska habeenka la baasay iyaguna la baasi doona haddaba waa la tilmaamaya goolka koowaad Jamal Musiala ayaa dhaliyay Lucas Hernandez ayaa caawiyay Mane ayaa dhaliyay kan labaadna xidiga Gnabry ayaa dhaliyay ayaa caawiyay
benjamin bavar ayaa dhaliyay saddexaad, jamaal museyl ayaa sidoo kale caawiyey, ganabry iyo loresani ayaa kala qaatay markaasi, ninkii davis ba alfonso ayaa markaasi isaguna lahaa caawinta kale, iyo christopher nkuku isaguna waa halsentenberg wiilkii ahaa ayuu ka caawiyey gool, laakiin macno badan ma sameyno. dani olmo iyo nkuku rigora macnaha 5-3 baa lagu kala tegay. baariyada weli gadaal waa duleelaano, macno badan weli ilaa hadda difaacoodu sidii la rabay maaha. haddaba maani ayaa si weyn u ammaanay wiilkii jamaal museyla, isagoo sheegay si inuu ugu faraxsan yahay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich inuu kula guuleysto koobkan, isla markaana Leipzig ay ka qaadaan koobka Superka. wuxuu yiri koobkii ugu horeeyay Bavaria uu noqonay, aad baan ugu faraxsanahay kulankii ugu horeeyay aan ku riyoonay, tanina waa riyadeeda, sidoo kale koob kale inaan qaado ayaan doonayaa oo kooxdan aan kula guuleysto buu leeyahay. wuxuu yiri ganabri caawintiisu sidaan u tababaranayna weliba xitaa waxyaabo badan baan ka bartay buu leeyahay markaan bokas ku jiro, marka waxaan doonayaa buu yidhi wax badan isla sameyno, birqsiyo badan aan isla faraxsanaano, aad baan ugu faraxsan halkeen aan joogo, weliba naadigan cajiibka sharaf bayna ii tahay buu yidhi, anigu inaan u ciyaarayo naadigan mustawiyga inaan wanaajiyo ayaana doonayaa. bayr waa fahantay mar walbo odagaba afka hore laga dhigaa, waxay leeyihin ninka tabar looma hayo, marka one goal marka win baa la helay, one game baana la ciyaaray, one trophyna waa la qaatay, markaasi waa shaqaystay. markana waxaan aadi doonaa kulankii xalaytoole. ma kulamadu biyaa isku jiray? iskuma jirin. kulankii xalaytoole wuxuu ahaa mid ka soconaa marka la eego kulamada kale. naadiga kubadda cagta City ayaa cardadiqaha laga dhigay, Liverpool ayaa loo dhiibay kubad iyo banooni iyo markaasi natiijo waa lagu garaacay, dhagaha laga garaacay, dhagaha tii ku dhacday waa la ogaa. Arnold ayaa ka dhaliyay gool unbelievable oo Salah isagu caawiyo caawintiisa lahaa. 21 daqiiqo waa loogu shubay iyadoo la ogaa in la handaday marka ugu horeysa. 70 daqiiqo iska soo bareejeeno, Alvarez ayaa gool u dhaliyay, ilaahay ku siiya. waa ninkii Adrian baa markaasi u dhigay, laakiin ayagu si kastay ku keeneen waa barbareeyeen. Salah baa gool kulaad ka dhaliyay. Darwin Nunes alaab waxa waaye hawada iyadoo waxaa leedahay kan seeway, markaas madax waxaa laga dhaliyay qaabkii maaragtay jifjifkii oo kale dhag lagu sii, weliba laga yaabsaday. Robertson kubaddu soo qaaday, dalaq marka fanaanadu siibto waa ku dabaaldegay markaa 94 daqiiqo markii ahayd. hala marka meeluu indhaha taagtaagayay, kuwanne waa shaqaysteen. weliba xitaa nadiga kubadda cagta Liverpool ayaa ku guuleystay markeedii 16aad koobkii markaasi Community Shield ama Superka u dhigmay Community Shield Ingiriiska loo yaqaano. haddaba ninkii Jurgen Klopp lafsadiisu Premier League, FA Cup, League Cup iyo Community Shield, hadda domestic ama marka kuwa maxalliga wax loo yaqaano waa dhammaystiray dhammaan. Trent Alexander-Arnold ka war iyaguna waxay ku guuleysteen koob kasta oo suuragal ah kooxda kubadda cagta markaas Liverpool ay u ciyaareen, isaga iyo weliba ninkii ahaa wiilkii cajiibka ahaa Robertson, labada wiil. sidoo kale Darwin Nunes ninka cajiib, ninka Almeria waad aragteen kulamadiisii ugu horeeyay waxdar buu sameeyay Liverpool, waad arkaysaan Benfica ninka kulamada ugu horeeyay waaba lagu tashtaa marka la eego. haddaba naadiga kubadda cagta Liverpool ayaa markeedii 16aad sidaas ugu guuleysanaysa koobka Community Shield ama Superka u dhigmo marka la eego. haddaba naadiga kubadda cagta Liverpool maxaa laga bartay? Darwin Nunes wuxuu noqday laacibkii afraad ee ka dhaliya kulankiisa ugu horeeya kulan rasmi oo kooxda kubadda cagta Liverpool ku matalayo inta Jurgen Klopp uu maamulayo. Mane baa sidaas sameeyey, Salah baa sameeyey iyo Virgil van Dijk. fantastic player buu noqonayaa marka laacib kale oo unbelievable ah. naadiga kubadda cagta Liverpool wiilkeeda cajiibka Mohamed Salah 13 gool buu ku lug leeyahay marka uu ka hortagayo kooxda kubadda cagta Man City. 8 waa ka dhaliyay, 5 waa ku caawiyay. wiilka isagu waa ka adag yahay marka la eego. Alvarez wuxuu noqonayaa laacibkii saddexaad ee Argentiniana ee Community Shield gool ka dhaliya. waad ogeedeen 2 jeer uu u sameeyay ninkii Aguero iyo weliba ninkii ahaa Carlos Tevez, isaga ayaa saddexaad noqonaya. Arnold ka waran 13 gool buu Liverpool isagu dhaliyay dhammaan tartamadooda, ogsano dhammaantood banaanka bay ku yimaadeen 77% banaanka. tan iyo 2016 October Mo Salah baa ka badan oo 11 haysta tan iyo waqtigaasi haddii laga xisaabinayo. kulan kasta sanadii ugu dambeeyay iska yimaadaan labada naadi iyagu waxay ahaayeen kuwa gool iska dhalinayay. ma ku caajisay soo taayadin lahaanigo kulamada ay ciyaarayaan City iyo Liverpool waxay uga soocan yihiin kuwa kale, maha kuwa lagu caajisay markasta iyagu iska dhalinayaan. Klopp oo ka hadlay waxa uu isagu sheegay si weyn inuu ugu faraxsan yahay marka laga qaab qurux badan oo wiilashiisa u ciyaareen, maxaa yeelay wiilasheedu fantastic bay ahaayeen buu yiri. qaabkii u ciyaareen cajiib bay waan daawaday, si u degsiimo badnaayeen, baaskii sameynayay weliba xitaa qaladaadkooda sidoo u yaraa
aad baan ugu faraxsanaa hore xalaytol waa laga yaabay ninkii awi qadka dhexe u ciyaaraya Thiago Alcantara war cunugu mucjiso buu noqday isla markaana build upka sida loo dhisayo kubadda iyo waliba xitaa pressingka markay saaraan sida looga bixinayo ama khuruujka markaasi daqdiga cajiib uu ahaa Darwin Núñez ayaa koobkiisii ugu horeeyay durba la tagay isla markaana goolkii ugu horeeyay waa laliyay odagii Haaland indhuhu taagtaagay xalay Timo Werner buu noqday waa laga yaabay Daily Mail ayaa amaantay wiilkii Mohamed Salah waxaana sheegaysaa kala wuxuu ku guuleystay wiilka mustawa wow inuu ka soo saaro baa leeyahay kadib markii la sheegay isagu inuu baxay 7 daqiiqo ugu horeeyay wax darab uu sameeyay waad arkaysan kulanka dhanba isaga ka ifayo isla markaana anigu waa idin sheegay waxaan idiri waxaad arki doontaan Salah oo kii hore aan ahayn oo ka duwan Jurgen Klopp labsadiisu waa ka hadlay kulanka waana amaanay wiilashiisa xitaa ninka cajiibka Pep Guardiola waxa uu isagu qabaa wiilashiisu inay tartami karayaan isla markaana Julian Alvarez xitaa waa ka hadlay kooxda kubadda cagta ee City ka tirsan wuxuu leeyahay waxay ahayd marka la eego kulanka natiijadiisu mid adag laakiin haddana anagu ma jeclin guul darrada buu yiri waxaan u baahanahay shaqada inaan sii wadno axlaareedku wuxuu noqon doonaa mid qurux badan haddii aan u dagaalno koobab buu leeyahay waanu sii wadi doonaa shaqadan hayno isla markaana wuxuu noqon doonaa imtixaan adag oo wanaagsan oo xilliyeedkan sameynay si wanaagsan baan u ciyaarnay buu yiri waxaan doonaynaa mustawin inaan sii wanaajino si natiijooyin fiican aan u helno wiilkii Ziaz buu leeyahay markaasi haddaba Erling Haaland ayaa lagu maadeysanaya isla markaana mucaaradka miyaa joogsanaya marka waxay leeyihiin City away Timo Werner bay tinta gadaal uga soo xireen markaas bay anaga noo keenayaan inoo leeyihiin Haaland baa idin keen ma ogola marka waa bilaabeenba waxay leeyihiin anaga Haaland baan sugaynay laakiin Werner baa tinta gadaal uga soo xirtay markaas aad leeyihiin anaga Haaland baa idin keen tan waxay leeyihiin lagu noqdo reer City waxaan ma la aqbali kara bay leeyihiin marka goolkii isagu cunay Werner iyo Sterling ayuu noqonayaa baa leeyahay isaga war goolaya hata waa jiiftay hadduu dhinac kale tartiib uga dhigi lahaa ama u qaban lahaa xitaa markaasi lugta kale uu ku dhalin lahaa cajiib ay ahaan leed baa leeyahay laakiin odagu waa shuudaya haddii uu yiri laakiin qofka cadaadiska markuu saaran yahay waa dareemi kartaa markaas wuxuu doono ayuu isagu sameynayaa marka wiilkaasi Argentinianku ninkii marka Alvarez qaabku u dabaaldegi jiraa goor uu isagu dabaaldegay wuxuu leeyahay nin kale baa isagu bilowday waayo cusub ayaa markaa la leeyahay Haaland waxa leeyahay kii hore koobil Premier League meeshan ku soo dhaw baa leeyahay meeshii lagu orday maaha meeshii lagu orday meesha maaha baa leeyahay Darwin Núñez ayaa sidoo kale waxa leeyahay nin la yiraahdo Harry Kane 300 oo kulan buu isagu ciyaaray hal koob kuma guuleysan ninka kale markaas Darwin Núñezna hal kulan buu ciyaaray koob buu ku guuleystay marka qasaarada markaas kooxaha koob la'aanta natiijadaas bay leedahay baa leeyahay ma shaqaystayaasha kooxaha ee koob aan ku guuleysan macnaha waxa leeyahay waa kuwan natiijada qaabkan bay leeyihiin 300 oo kulan baa ciyaaraysa wax koob kuma guuleysanaysa cagsiga markaad fiiriso hal kulan baa ciyaaraysa koob baa ku guuleysanaysa marka waa la kala tagay orodna maaha marka lagu leeyahay been maaha marka kooxda kubadda cagta Liverpool aad baa loo amaanaya qaabkii iyagu u ciyaareen waliba xitaa natiijada ay heleen Klopp ayaa sidoo kale amaanay wiilka Darwin Núñez war wuxuu leeyahay wiil ka soo marka la eego kuwa kale 85 milyan laha waa cajiib uu yiri sidoo kale Darwin Núñez taageerayaashu waxay leeyihiin war wiilkan banaanka buu ku dhacay meel buuna iska saaray kulankiisa ugu horeeyay Erling Haaland haddaba marka waan arki doonaa Haaland marka mucaaradku uu ku maadeysan xalaytol marba Van Dijk oo u dhiibay mogtahay oo isku gardareystay sir waa loo dhiibay soo dhul ku dhacay la arkay laakiin isagu marbuu Robertson baa kubad waa ka controlnay hadduu yiri waa lagu dhacay saaxiibka Robertson waxaa laga soo qabtay halkaas tareen ma dardaray baa leeyahay ninka xaalkiisu waa sidee marka isagu halkaas marba lagu xasuustaa xalaytol marka reer City waxay si weyn uga careyseen lafsadoodu VAR-kii marka laga dhigay waliba xitaa qaabkii loo maamulay marka goolkulaadkii laga dhigay Salah uu dhalinay kuma qanacsanay marka la eego xiriirka kubadda cagta wadanka Ingiriiska waxay sheegeen in talaab adag laga qaadayo isla markaana baaris la sameyn doono cidii lagu helana la ciqaabi doono maxaa yeelay shalaytooda waxay sameeyeen reer Liverpool iyo qayb kamid ah kuwa City in markaas iyagu helciyeen bambaanooyinka qiiqa iyo waliba waxyaabo kale mamnuuc ka ah ee garoomada kubadda cagta in lagu isticmaalo waxay yiraahdeen anagu Ingiriisku soo saareen xiriirkoodu waxay yiraahdeen waan ognahay anagu marka la wixii ka dhacay shalaytoole isla markaana waan eegi doonaa qaab taxadar leh baan ula socon doonaa waliba xitaa la iskama yeeli doono si fudud tan loogama baxsan doono bay leeyihiin marka xiriirku waa baari doonaan marka qanaabilada ama markaas booyinka qiiqa iyo waliba waxyaabaha kale lagu ciyaaro oo waxay yiraahdeen amar ama arin aad u khatar badan oo aan sharci ahayn bay ku tilmaamayaan waliba xitaa natiijo aan wanaagsanayn ayay ku tilmaamayaan
in ay noqon doonto akhirka. Haddaba waan arki doonaa marka Premier League soo spelen hambal iyo kooxda kubadda cagta Liverpool sheekadiinu marka waa ka idinku waa dabaaldegaysaan markaasi. Wararkii kale baan soo koobi doonaa nadiga kubadda cagta markaas iyadu Arsenal ayuu leeyahay regulation bay noqonaysaa. Arsenal marka lix dhiibaysa odaygii Ferguson ahaa aniga waa idin sheegay odaygu camcam uu noqday hore idinku iri marka warkiisii aan la qaban reer Liverpool iyo waliba markaasi Arsenal iyo kuwa kaleba wuxuu leeyahay labadaas isagu ma xasuustaaba maxay yeelay wuxuu la tartami jiray yaa way kuwa la tartamay sidii la yiraahdo City iyo kuwan hadda muu qorno wuxuu leeyahay Liverpool iyo Arsenal. Haddaba ninka taageeraha caanka ah ee la yiraahdo Frankie de Toure oo ka mid ah ciyaartoyda ugu caansan ee fardaha isla markaana waliba xitaa taageera kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal ayaa waxa uu la kulmay ninkii Sir Alex Ferguson ahaa kulaha Ferguson ba hadlay marka war wuxuu yiri ninkan aniga ka saaburi Arsenal sanadkan waxay u dhacaysaa weerarka labaad. Ferguson ayaa galab ugu leeyahay war Arsenal lix dhiibaysa ma leedahay hoose u dhacaysaa wadada Ferguson maxaa ku dhacay xaalkiisu warka waa kaayo. Haddaba Xavi Hernandez ayaa isagu markaasi la mid dhigay Robert Lewandowski heshiiska xidiga cajiibka ee Luis Alberto Suarez. Wuxuu yiri wixii ku dhacay Suarez markii uu imanay Barcelona waliba xitaa ayay noqonaysaa buu yiri waxa hadda ku soconaya ninkii ahaa Robert Lewandowski macnaha gool fara badan ma dhalin jirin buu ninkii ahaa Suarez bilowgiisii. Dabcan ninkan gool inuu dhaliyo mas'alad waqtiga u baahan mucaaradka baa darad lahaa Soomaaliya arkin Allah waxay yiraahdeen laba gool baa ciyaartay goolka dhali weysay meeshaas waxay yiraahdeen waxaad moodaa baa leeyahay Jarmalka iyo goolish laga dhalinay talameysdi meel fariisi baa leeyahay xukuumadaysanaya markaasi. Ancelotti wuxuu leeyahay aniga wiilasheedu koobkii 14aad ee Champions League muusigadiisa dhagtooda ka yeerayso aniga Barcelona xiixday keentay maxaan u fiirinay buu yiri Super Copa inaan ku guuleysto danteeda buu yiri aniga isla markaana koob inaan sii qaadan rabaa buu leeyahay wadagu soo waa muhiim buu yiri aniga dhaawac inaan la kulmin laakiin waxa waaye dhagteennaba Champions League waa dhagteena ka yeerayso buu Champions League warkoodu waa cad yahay markaas iyagoo. Haddaba Cristiano ayaa maanta ciyaari doona kulan saaxiibtinimo kooxda kubadda cagta Man United isagu ciyaari doona isla markaana nadiga kubadda cagta Chelsea waxay qaadatay saxiix cusub baa leeyahay isla markaana here we go golhayi Chicago 15 milyan bay ku qaadanayaan 15 milyan oo dollar wiilkii Gaga Solina wiilkii ahaa Gaga Solina nadiga kubadda cagta Chelsea baa qaadanaysa full agreement nadiga Real Madrid bay ka afduubanayaan Madrid waa ku dhaweyd ugu dambeyn waxaad afduubata horta aan aragno Konrad Laimer hore idinku sheegay nadiga kubadda cagta Bavaria buu ku dhaweey hadda waxaan idin sheegayaa Leipzig hadal bay kula jiraan Leipzigna waxa xaqiijisay wiilkaasi min Zalaf wuxuu leeyahay nadiga kubadda cagta Bayern baa hadal kula jirnaa laacibkan hadal baan kula jirnaa maamulka kooxda kubadda cagta Manchester United waxa ku biray ninkii Benny McCarthy waa taqeenan Benny McCarthy nima aqani ma jiraba aye yuu ciyaari jiray ninka Benny McCarthy hadda xasuutaan commentiga hoos ku soo qor hadda Premier League hore ahaan jirtaan ka hadlaya aniga 2012 2014 dhamma ka hadlaya dadkii hore hadda ahayd Benny McCarthy wuxuu u ciyaari jiray soo qor markaasi waa ogahay Google ha gelin xaggaas dhaha soo maraaday inta toos commentiga u imo. Haddaba nadiga kubadda cagta Milan wiilkeeda Charles ayaa la tilmaamaya isagu inuu u duulayo magaalada Milano xogtii ugu dambeysay waxay tilmaamaysaa wiilkaasi isagu halkaa inuu aadayo isla markaana cajiib uu noqonayo xogtii ugu dambeysay leeyahay Milan iyo Charles oo isleeyahay tijaabada caafimaadka walka kaga gudbaya guud ahaan barnaamijkeena maxaa cusub naga inta tan kulmi doona barnaamijka mid lamid salaam.